afkaygu qolomatid qabiiliyo reer matid afkaygu qolomatid qabiiliyo reer matid bismillaahi raxmaani raxiim walaalayga soomaaliyeed afka hooyo maaha masqaro iyo wax la siici karo in loo kaco jiritaankiisa iyo nooleyntiisa oo waajib ina wada saaran oo lagu qasban yahay waayo sababaha soo socda kow waa heybteenna our identity ama adduunta isu keen haysa oo haddii ay godo sida tusbax hadba meel ku fininaya laba waa kaydka dhaqankeenna hiddaheenna iyo taariikhda aynu ku midaysannahay saddex waa wasiilada aynu isku afgarano isku fahno adoo maraya shaaric londona haddaad ku dhawaaqdid waryaha inta afka u dhalatay inta taqaana oo keliya ayaa kusoo jeesanaysaa oo waa la garanayaa in uu dhawaaqaas soomaaliya macadka af soomaaliga macadson baa bartan youtube-ka ama channelkan u furay ku baraarujinta ummadda soomaaliyeed taariikhda afka ee fog iyo ta mucaasiriga ee dhow qoraalkiisa horumarintiisa xaaladiisa iminka iyo caqabadaha weli dabra iyo hortaagan aad baa maanta runtii dadku waxu qoraan dhibasiiba dhallinyarada waa arrin runtii lagu diirsado laakiin waxaan xoogaal ahay sida dad doora oo ila midii ma fiicna tayada qoraalada sababta ugu weyn oo ah qoraalka afka oo aan midaysnayn iyo xirfadaha qoraal ee dadka wax qoraya oo gaaban labadan dambe oo aynu xoogga ku saari doono doodaha iyo munaaqashooyinka lagu soo bandhigi doono bartan hordhac oda dhacbaysyo kala sarreeya baa loo kala guraabay soomaalidu tirahaa markaa awalan aynu ku horeyno taariikhda afka taariikhda afku waa mid horo qadiimi ah iyo taariikhda muxaasiriga cusub contemporary la yidhahdo taariikhda qadiimiga ah waa la yaqaanaa oo cilmiyan waxaa la caddeeyey in afkan maanta ku hadlayno 5,000 sano ka hor lagu hadlayay sidaasoo lagu qeexay daraasada ay samaysay jaamacadda Cornell University Germany macadkeeda Oriental Studies Professor Bernard nin ku takhasusay contemporary comparative linguistics ayaa garwada ka ahaa daraasaddan muddo ayuu joogay Afrikada Bari gaar ahaan Rift Valley ilaa koonfurta Suudaan oo baarayay afafka kushitiga loo yaqaano kuwan oo ka mid ah qoysweynaha afeed ee laisku yidhaahdo Afro-Asian waa magaca kulmiya afafka kushitiga iyo semitica bilowgii 1994 baa Professor Bernard ii soo diray warqad ka mid ahayd daraasadaas oo la yidhaahdo the bus language ereyga bus oo Soomaali waa bad maxaa yeelay xarfaha da iyo sa way isbedelaan afkeenna tusaale maxaa yeelay da iyo sa way isbedelaan afkeenna tusaale waad haysaa dad baa odhanaya waad haydaa ama way weyday odhanaya way weysay tan oo keliya ahaan ku xidhan hadba degmadaad joogtid hagaag bas garanay inay tahay bad ee su-aal waatii baddu xaggii ku taalla baddu waa harada ku taalla koonfur galbeed ee dhulka maanta loo yaqaano Ethiopia daraasadan baa xaqiijisay in dadyow Nilo Sudanika iyo Soomaali ku kulmeen haradan muddo laga joogo qiyaastii 5,000 sano Soomaalida ayaa ka ilbaxsanayd oo kaga horreysay dadyowgan qodaalka xoolo dhaqashada naarsimo oo metallurgy loo yaqaano oo wixii bir iyo farsamadeeda ku shaqale iyo farsamooyinka loo badan tan baa sababtay in dadyowgaasi ka caadiyeystaan ama amahdaan Soomaalida ereyo badan oo la xidhiidha arrimahan kor ku xusan iyo farsamooyinka waa tabtaas marka xadaarada kulmaan ta ilbaxsan baa laga qaataa ereyada waa sidaas awgeed waxa aynu uga qaadanay ereyo badan carabiga iyo ingiriisi iyo wax la mid ah daraasadan baa lagu helay ereyo badan oo goti ku ah afafka Nilo Sudanika oo ku jira daraasad oo tadheer kadib baa la ogaaday in ereyadani ka soo jeedaan af Soomaaliga oo si wacan loogu sii koorgalay ereyo gaar ah ayaa jira oo lagu bilkeediyo isbarbandhigga afafka waxaa loo yaqaano comparative linguistics kuwii baa lagu helay inay Soomaali yihiin oo keliya maahe 100% la mid yihiin kuwa maanta afka ku jira aynu ku hadalno ereyadaas waxaa ka mid ahaa alabka aqalka iyo adeegga iyo waxaa lagu adeegto qodaalka beeraha xoolo dhaqashada tirooyinka iyo wax la mid ah Soomaaliga iyo afafkan waxaa la isku yidhahaa maanta koox 100 ama 100 group waa afaf laga hadlo Kenya Rift Valley ilaa koonfurta Suudaan iminkii haatan sidee xaalka qoraalka afku yahay qoraalkiisu ma midaysna
af u gaara ayaa qof waliba leeyahay ku darso oo weliba ma jirto qaacido qofkaasi u raacayo qoraalkiisa maankiisa ayaa macallina bilowgii qoraalka waa jirtay dhibtani haddana waa kasii daraysaa kolba marka dadka wax qoraya bataan baa dhibuhuna kasii darayaan oo kordhayaan markaas maxaa tala ah walaalayaal siday aniga ila tahay waa la joogaa waqtigii la midayn lahaa wabilaahi tawfiiq afkaygu qolomatid qabiil iyo reer matid afkaygu qolomatid